kusoo dhawaada idaacadda codka Soomaaliyeed maanta waxaanu ka hadlaynaa barnaamij qubana ah maadaama aynu weli bandowdii rabbaaniga ahayd oo inoo keenay cudurka karoonuhu aynu ku jiro ilaa 5-6 qodob ayaan kormaraya mid siyaasad leh mid aafadan oo dhex fadhina leh iyo mid kaleba leh aan ugu horeysiiyo ninkii loo odhan jiray Oldoon wariyaha ahaa mana ilaawin doono waana u taaganay waana meesha uu ku jiro laga soo furtaa taa waxaan ku darayaa aan ku horeysiinayaa aafadan koronaha horeen uga hadalay caalamka oo dhan baa ka hadlaya idaacadaas furtaba waad sasaysaa nanu saaxiib nahayo habar jeclo oo la soo doorsanay ka badan saaxiib ahayn baa ila soo hadlay maalin saddexaad oo ugu wariyaha Xaaji Cabdi waxaan kugu ogaa adigoo yiraahdo qabyaaladda iyo bahalka leeyahay madhabta ayaa ummadaha kala ka haysa markasta nimka ku arkana waxaad ka hadlaysaa Jeegaanland saaxiib dhageysan ku yiri soo doorsanay ka badan bayru isnaqaanay waa hadal saxa qabyaaladda yaa bilaabay waad ogeydo Muuse Biixi iyo Maxamed Kaahin maalintii ololaha ku jiray ay Somaliland ama Jeegaanland dhexdooda ay tartamaysay ereyga ay kaga tiraabeen magaalada Burco waxay ahayd garxajis laguma aamini karo xukunka wadankan qabyaaladda ka weyn oo lagu wada hadlo oo lagu kala dhaqaaqo miyad garanaysa raggii dhuuntay maalintii la isdilayay in ereyga anaga nagu yiraahdo kuwa ma la hadashay baan ku maalintii salaadiinta habar jeclo iyo salaadiinta nimanka la yiraahdo awal ama sugaan awal ay Burco isugu yimaadeen salaadiinta guud fadhiday ee boqor buurmay u fadhiyay Jeegaan baynu isku nahay oo inanta ay cibraan ku dhashay markay gabiile noogu timaado Suldaan Xasan miyaan laga haynin Jeegaan baa dhashay baan oranaynaa ma kala maqnin tataan la mid ah ee Jibril Abukar ay dhashay markay Burco ugu timaado waa Jeegaan kuwa ma kala hadashay ba ku qabyaalad ilaa ruuxa ka hadlaya oo magaca iyagu isu bixiyeen saaxiibkay mu hadalno badan buu aamusnaa waxaan kuugu darayaa madaxweynihii aynu dooranay ee Maxamed Axmed Siilaanyo isagoo fadhiya iyo 9 wasiir oo Jeegaani waxa lagu lahaa waxaanu xulafan noqonay oo aynu iska bahaysanay garxajis 1954 waxaanu nahay xulafada la yiraahdo NATO oo kale inagu xukun aynu isku wareejino iyo dadana haysanay mooyaane meel kale ma aadi karno saaxiibkay meel allaale meel uu uga baxo arrintii uu gabay waa baraalidii oo iga hoobuur si kala niman anagi wax ii tuseere waxay isna igu xigay in inagoo garxajis ah ayaa la soo hadlay wuxuu igu yiri labada xisbi mucaarad nimanka haysta iyo dawladda federaalka saddexda iyaga dacaayada ka yaree isla waxa ku yiri inaad yara dhageyso darabani wabaka sabaqani washtaka mahmahdi yaman intuu qaniinay ayuu isagii ooyay intuu qaniinay ama dilay ayuu iga gacan horeeyay ama way iga socod horeeyay oo uu soo dacweeyay waxaanu ka hadlaynaa anagu qof ma haysano meeshan waxaanu ka hadlaynaa xaqaa'iga siyaasadda ee meeshan taala meesha Oldoon ku xidhayay ee labada nin garxajisna ay suurka ku xidhayeen ee u xidhayeen nimankii Cabdullaahi Khasaare kala soo baxay halku ku jiraan uu maanta isagii ku jiro waxaan ku taasi mudaro iyo taariikh xumo adiga laftaada ku tahay wacdina maahay ta federaalka aqul madaxweynaha federaalka haysta ariga adeernay maaha abtinay maaha laakiin wixii uu qabtay iskii isaga ka soo horeeyay Sheekh Xasan ba sheegay inuu Soomaaliya ka soo wareejiyay arrintii ku meel gaarka uu naga dhigay dawlad rasmi ah laakiin maalintuu bilaabay inuu Siilaanyo dekada la iibsado ina xaashi iyo ayaan isagana diiday markaa aan xaqaaqigaas ka hadlaa inta wax kaad ku darsanaysa ma jirta labada ku gaaro dadka iyaga laftooda islaamaha isku xayiray yihiin waa in la isu dul qaataa hadii kale waa isku wada qarxaya waqtigan imika aynu ku jiro hore uga soo hadalay cilmigan aafada viruska caalamka oo dhan meel allaale meesha furtaba masiiba ka socota meed la qaadayo iyo qof dhimanaya marka waqtigaas oo kale dadku waa wuxuu isku madadaaliyay helaa waan xaqaaqiga inta badan ama garta wajiga lagu dhufaayo wixii aynu qaban lahayn oo dhan waa la inoo sheegay xaqaaqiga maanta ka hadlayno nin professor ah oo Ingiriis oo jaamacadda Cambridge ka dhiga cilmi falaga ama astronomiga ama afka Soomaaliga waxa lagu yiraahdo xidigiska markii hore Soomaalidu xidigiska way ku wanaagsanaan jirtay laakiin cilmigaas imika way naga sii lumayaa 2003 buugu qoray Threats to Humanity la yiraahdo ama Last Minute يوم القيامة wuxuu qoray 2003 arrinta uu ku bayaamiyay waxay 2020ka
inuu virus iman doono la dhalangadiyey uu dili doono 1 milyan oo qof arrintaa looma dhug lahayn aadna looguma fiirsanin habeen dhaweytuun bay maskaxdeeda kusoo dhacday waxaanay xusuusiyey nin qoraa ahaa oo loodhan jiray Hashim Talib oo carab ahaa ayaa 2006 2006 buug qoray arrinta ninkaa ku xusay laakiin waxay markaa ma taageereen waxaan moodin qof waalani wuxuu qoray baan moodin waxaan ninkaa arrimihiisii markaa dib bay wixiiba igu soo noqdeen ugu noqday inaan bal soo eego waxaa ka mid ahaa arrimuhu ninkaasi ka hadlayay professorkaasi Martin Rees baa la yidhahdaa qofkii u baahan buuggiisa uu heli karaa threats to humanity to Cambridge University Martin Rees Professor Martin Rees weeye qofkii u baahan inuu soo akhristo nin sixir yaqaanana maaha nin faaliyana maaha laakiin waa nin wax oo darasa sidii laboratoriyada caalam xidigaha laftooda cilmi badan baa ku jiro odayaasheenu xitaa waqtiga roobku da'aya way garan jireen markay universe-ka eegaan buugga ninkaa carabka qoray waxaa la yidhaahdaa alkown wa masiir al-insaan universe-kaanu ku noolahay iyo dadku xaggay joogaan marka waxa waqtigaa la sii gartay lagama diyaar garoobin calaamatu su'aal baa halkaa ka jirta ninkaasi arrimuhu qoray waxaa ka mid ahayd argagixiso dagaal biology ah ayaa nagu soo baxsan doonaa way cloninga sida geneticada bini'aadamka loo bedelay ee la doonayo dad isu eg in la sameeyo oo xanuunada u adkaysanaya wuxuu arrintaasi waxay keenaysaa misbehavior dhaqankii aynu naqaanay inuu isbedelo cilmigan electronicska digitalka ximka xataa aynu gaadhnay completely caalamkii uu bedelay islaanta adigo ku ag fadhidaad maanta oo kale qof baa telefoon kula hadlaysa ayaa iska daawanaysaan FaceTime-ka ama internet-kaad ku jirtaa oo meel kalaad ku maqan tahay ama YouTube baad ku jirtaa almost dhaqankii bini'aadamku aad buu isu soo bedelayaa oo waxay naga soo bulshaawannimadii baa ka soo yaraanaysa adduunka dulqaadkii baa ka soo yaraanaya baqadintii baa badanaysa waayo dagaalkii labaad 50 milyan baa dhintay imika 67 milyan 67 kun buu maraysaa dhimashada oo dhamay intaas oo bilood intaasoo wadda baa burburtay oo caalamka ka baxday khariidadiisa dagaalkii labaad waxaan u halaca muuman waxa inoo keenay horumarkan technology-ga oo ka sii hadlay ninkaasi buuggiisu robotadan la sameeyo iyaga laftoodu inay gacanta ka bixi doonaan dagaalka biology-gana exactly xarfiyan sidii uu u qoray ayay u dhacday cilmi badan oo gacanta geli doona dad khaldan ayuu isaguna ka sii hadlay taa markaynu ku dhaafno bandowda iyo guri ku xidhnaanta iyo aafada maalin saddexaad baan yaro qufcayo waxaa maarkistaanta iyo bustasiisida toodu ku siiso aniga iga gabanaysa isla waxa uu la wareegaya nafka ku gurdi aan ku soo dhawaado khudbadii boqor buur madow si aftahanimo leh oo saraaxad leh oo bareer ah waa ninkaasi mar walba uu bareer ah xaq uu xaqlinayo baa kala duwanaan jirtay ninkaasi wuxuu cadeeyay maalintii la weerarayay Kalshaale wax Soomaaliland oo xuduud ah oo la soo xidhay inaan jirin ee reer ku duulaya oo ciidan u kaxaystay ahayd oo isaguna ahaa wartalow culka George wuxuu kaloo inoo cadeeyay in badan kala hadlaynay ummadeena war meesha Soomaaliland la yiraahdo horaa loo soo qaatay dowlad goboleed laakiin dowlad goboleed qarsoon ayaa hore loo soo qaatay oo la idugu maalayay dadkiina deegaanka ee meesha tagay xoog ahaa dhigooda ku xardhay yihiin taana hore waa noola garan weyday maanta uu ii sheegay boqorku waxa kaliya ee uu madaxweyne Muuse Biixi raadinaya wuxuu waa lacag taa la soo ogolaaday ee IMF iyo World Bank ay Soomaaliya u soo fasaxeen wixii uu isagu u qaadan lahaa reer ahaan ila meesha xukunka ka jira waa xukun family enterprise waxa la weydiiyay Henry Kissinger baa lagu yiri wadanka North Korea isagoo Yale University ka hadlaya ka waran wuxuu wadanka ma aqaan waxaan u aqaanaa family enterprise dukaan hilib la ah ama timir la ah oo family u furan baan u aqaanaa bal sheegan lana dil la weydiiyo garan lahaa muxuu ku sheegi lahaa kharabiiti nawr meelaha isugu yimaadaan nimanka la yiraahdo sigoonuhu xafiiska sigooraha ayuu ku tilmaami lahaa kharabiiti nawr wuxuu yidhi odayga ninkaas la reerka kaga tag taladiisa hasi haye ma isagii baa go'on qotay اعتراف هينو جوجي نبتقلي هينو جوجتو أفضل دجال ما هينو جوجتو وحكو صور رطي إلا الراديو لعج فاميلي انتربرايز تانا وكديدي وده هو الفرماجو وده الفرماجو استجع قاعدة لها دو قاعدة كريه لعجته ولا لعج حساب كسعتها أو لما مونيتر جرين أيوه وصدق دي برود بقى حساب حد
laga doonayo inay soo noqoto maamul goboleedadii oo dhan bayna arrintaasi imika ay ku soo xayirantay oo meel ay ka baxaan aan lahayn. haddii Soomaaliya iyo Somaliland ay wada hadlayso, Somaliland dad baa kusoo dagaalamay, waxa lagu wada hadlaa waa taariikh, waa cudud, waa cod. maxaa meeshan kaa galay nimankii xoogga dalka Soomaaliyeed u bareeray ee garxaajiska ahaa ee 40 korneyl ay taxan yihiin maanta laga wada hooseeyo qabriga ku jira, 40 korneyl naafadina ay suuqa taagayna aanu midna qadaynin. rag waaweynaa ay ku leeyihiin waa layna soo weerarayaa, nimankaasaa gacanta dhiibaya. saylada waxaa gacanta dhiiba dilaalka iyo ninka ariga iibsanaya, laakiin dilaalku yuu wakiil ka yahay weeye waa ninka ariga leh. de haddii aan layna dilaalaynin oo aan gacanta laynoo dhiibayn taa inagu aynu aqballo aanay ahayn, le waxa la kala iibsanaya waa dhul iyo dad iyo taariikh iyo xoogi. ninka gacanta dhiibaya marka waa ninka xoolaha leh haddaanu dilaal wadanin. siyaasadii markii boqorku intuu sheegay alcumuum intaasaan kusoo koobay, waayo xaqiiqda ugu dambaysa waxay ahayd labada arrin, labada qodob uu ka hadlay. waddankana laguma sii eegi kara buuri, waayo Cabdiraxmaan Tuur Soomaali laba harsan tahay ayaan uga taagi weynay, war iska daaya meeshiisa ha dhamaystee. ninkii waddankana xoraystay ahaa waa ninkii ogaa 4 beeri jaa qayradu ka yeedhay. waxa wasiir oo dhanna reeraha kale ahaayeen, nin garxaajisi kagama jirin. Ismaaciil Buubaaba kaga jiray wax garxaajisa wasiirada Somaliland oo dhan. inta kale reerka jeegaanta ayaa ahayd iyo madaxweyne ku-xigeenka oo nin Arab ahaa. cid kaloo kasoo raacaysay ma jirin. maanta oo intiiba isku reer tahay ayaa looga taaglaayahay war ubadda sidan ka daaya. maalinta ay heshiiyeen ninka la yidhaahdo Mengistu iyo Maxamed Siyaad Barre Djibouti, waagaa ku bariyay sanamtii awralay cagay noqotay. raggii ugu horreeyay carreeyay ahaayeen waa madaxweyne Silaayo, waa Muuse Biixi. waayo marka hore waxa loo tegay waxay ninkii cag jare tuulooyinka ka daba caraabi jiray waaba cidhiidhi dadka, wax maskaxda u dhinaayeen. qof allaale qofkii tuulada ka baxay uu sii raaci jiray intuu sahaadiisa sii qaato. ninaan aqoono dadku waa yaqaano, dadka lama hadli jiray ayuu cagta u saaray. markaasuu waa xagaad ku socotaa inaa ridaa buu sahadeediina waa sitaay. gurigaagii markuu ku geeyo meelkooda socday ayuu qof kaloo meel kale u caraabaya ama jarmaadaya xaggaa kasii raacaya. nimankii soo raacay ciidamadii saraakiishii militariga iyo sifilkaba lahayd ee garxaajiska, maalintii ay arrintu inagu caddaatay ee lagu heshiiyey Djibouti meesha la yiraahdo, waxay dhii sheegayaan maanta hadday xabad dhacdana xabad wax lagu tarin, hadal la hore waxba loogu soo tarin. nimankii soo istaagay ee diiday waxay ahaayeen nimankii siyaasiyiinta ahaa ee garxaajis iyo nimankii military, labadaa garab ayay ahaayeen. Ismaaciil Buubaaba baa ka mid ahaa, Cabdullaahi Xaraa ka mid ahaa, Jaamac Ali Cilmi baa ka mid ahaa, ina Macalin Haaruun, Xuseen Dheere, ina Baaruud. de maba tirin karo, waa millions. nimankii usoo bareeray ee yidhi la isdhiibi maayo, lana carari maayo, dibna loo bixi maayo. xasan guurna markhaati buu iiga yahay. maalintii dhaweyto khudbadiisii inkastay korka xaadis ahayd, ereygaasuu ku dhuftay afka. taariikhaha la qarinayo ee la aamini maayo sidee baa loogu odhan karaa reerka intaasi ay kaga maqan tahay sidii qof waalan. marfuuc alqalamka waa qofka waalan, markaas ayaa xilka laga qaadaa xagga rabbi iyo xagga sharcigaba. halka la ilala gaadhay ee nimanka ilala waxbaynu wadaagnaa oo dowlad baynu wada leenahay ee jeegaanlaantu waa halkaa. dad fara badan baan la yaabaa, waayo anugu kama baydhbaydho runta. dad fara badan baan la yaabaa oo yidhahda hadallada hala kala turo. war la inoomana turin, la inoomana hambaynin. dagaal siyaasi ah oo qabyaale ah oo aan xishooda laguma aamini karo. macnihiisu waa qof waalan oo marfuuc alqalama. sharciyanna markaa qofkaa wixiisa waa dhacayaan, dad ahaanna way ka dhacayaan. garna ma naqsan karo, gurina laguma hadlayn karo, dab buu ku qabanayaa weeye. nin walibana intuu kuu joojiyo unbaa loo joojiyaa. raggii maalintaa cararay ayay ka mid ahaayeen. raggii ku dhintay ee ku dagaalamay ee dhiigood ku xardhan yahayna waxaa lagu ololeynaya looma dhiibi karo. koonfur bay ku socdaan. madaxweyne Farmaajona waxaa lagu baryayay meesha la yidhahdo Addis Ababa oo lahaa lacagta noo soo fur. wax kale oo la doonayay oo nidaami ma jirto. adigu wanaad garba duubnaataa waa saca meesha ku xiran, sidii Donald Trump maalintuu doorashada gelayay la yidhi Sacuudi Arabiya ka waran. waa sac buu naasta waaweyn, waa la maalayaa. haddii aan laga waayna waa la dareenayaa. garxaajisku halka waddanka uu ka joogo halka laga geliyey ee nimankan meesha yimi ee jeegaanta ee talada ku yimi ilaa 54kii taladan wada lahaa ayagu cadaysteen Silaayo lagu lahaa ay ku lahayd wasiiradii Samsam. halkii bay taagantay. marka maanta maalin la isugu baaqo isaaqow ma joogno ina xaashi uu ku qayliyo isaaqow
caalamku wuu isbedelay caalamkii hore maaha nidaamkii caalamku dhan wuu isbedelay tanaana fashilisayba xudmeyd maxaa u dambeeyey kaa la sii sido aafadan coronaviruska ayaa ina tustay inay wax maamulay hayn karaan aanay jirin dad bilaa integrity ah aynu gacanta u galnay mar walba qof kale katabaankiisa ayaa la surayaa eedii maraykan baa u taageli waay annagu de maraykanku manan dooran maxamed kahino meeshaadna khilaafteen waa somaliland ama waa jeegaanland halkan aad joogto ka hadal marba qof kale ha kula cararay integritygii meeday xidiyihii iyo kudhicii qofku khaladkiisa ku qaadan lahaa ee lagu yaqaano leadershipka meeday kii madaxweynaha u ahaabaa cararay oo beertii xisbaan dacas ee uu marxuumkii korneylkaa ka boobay mujaahidkii dhex fadhiya waa xadar almowt waa ninkii ka cararay baalka loo yidhaahdo furuqa siduu u ordayey daacuunka u galay xadar almowt halkaa mowtkii ku qabtay beer la galaa beerna laga dhacay waqti xanuun jiro daada wada kale ma waqti ummadaada laga carara waa siduu dagaalka ay uga carareen maalintii waddanka soo gelaynay sidii ay dagaalka uga carareen taariikh tuciidu calaa nafsiha history repeats itself taariikhdu iyada aysa soo celisaa cudurku waa dagaal sidii maalintii kimista loo cararay ayaa maantana loo cararay oo layidhi beer ayaa ummadii baahnay ee bilaa dawada ahayd laga galay oo lagaga soo dhuumanayaa in cashuurta loogu geeyo waa fadeexad dagaalkii labaadii adduunka waa ogeeday boqortooyada ingiriiska churchill markuu ra-iisul wasaaraha meesha ka ahaa uu ku yidhi sawaariikhna way soo dhacaysaa diyaaradna way duqaynaysaa ay ka baxa hadaa dhimataan taajkiiba inaga dhacayeen canada taga waxaad halkan waxaan u joogaa dadkayga inaan la dhimanno lana noolaano taa walba kamayna fulaynin laakiin dadka dhallinyarada ah ayaynu doonaynaa inaanu caddayno tala la-aan iyo tabar la-aan ayaa halkaasoo wada fadhiisatay snam ciddii samaysatay garxajis bay ahayd ama siyaasiyiin ha ahaato ama cid kale ha ahaato niman dadkii ingiriiska waddanka ka kiciyey xisbullaahigii garxajis bay ahaayeen sawtal carab dadkii ka hadli jiray sayid xaaji muuse axmed sheekh muuse suldaan rashiid suldaan cabdullaahi oo isaguna dadkii la asasineed gareeyey ee raggii islaamta lagu laayay noociisii oo kale ahaa 1968 ee hore usii sheegay suldaan cabdullaahi waxaas oo dhan baa ina soo maray hore arrintaa uga soo hadlayo taytaladii laynoo samaystay ee buuggii odayaashu ay soo akhriyeen waxaa ka mid ninka la yidhaahdo cabdullaahi cabdiraxmaan gulwade 24 saacadood boobe ducaale iyo caaya ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan gulwade isaga ka islaamsan ninkan isagoo markuu safiirka ahaa ninkan waa ninkii waxaa seeduwaa ninkii la odhan jiray cali masiixi ee garxajise taajirka ahaan jiray wax soo baray isaga keenay ku sacuudi arabiya safiirka ka ahaa ee nimankii garxajise waqtigaana dardaraaye caalamada loo ordiyay lacagta dadka ka ururin jiray la ashkateeyey la rabay in la qabqabto muqdisho laga dejiyo cabdiraxmaan gulwadu ahaa ninkii ay garxajisku kala hadleen raggii soo koriyey cali masiixi iyo ilmaadeeradii ee lagu kanada dadkan u dir markaa boobadda cali ciidanka gulwadayaasha ummadda soomaaliyeed buu ka tirsanaa cali gurayna hargeysuu fadhiyo uu basaasiyey gaani kuwa kalena gaalka ayay taagnaayeen marka tii durbaankaas inuu inaga soo go-ay ayaan u malaynayaa weli okay aanu galo arrinta federaalku maadaama ay ummadii soomaaliyeed ka soo saamaxeen lacagtii lagu lahaa loona soo ogolaaday in layla macaamilo si caalamka kale sida uu shaqeeyo si lamid ah arrintaasi waxay keenaysaa in iyaga lala xisaabtamo oo aanay lacagtii sidee u bixi jirtay aanay u bixi doonin haddii kale la gelin doono corruptionka sida kan aynu dhex fadhino ee wada musuq maasuqa ah markaa suurtagal uma aha maamul goboleedna ama muuse ahaado ama mid kale ha ahaado ama khayraha lagu soo bedesho waxaan loo hamiyo dig leeyahay ee loo leeyahay khayraanu la hadlaynaa macno kale oo dadkan uu idiin maqani ma jirto sida cashuurtaa laydiga sii guran lahaa lacag kale oo rasaas laydigu soo iibsadana lacagta dowladda federaalka looga heli lahaa tiradiinana loo dilaali lahaa layduguna baa mushtari lahaa soomaaliya caalamka oo dhan baa doonaya in dib loo dhiso waayo iminka waxaad moodaa cold warkii ama iminka china oo halkii soviet unionka buuxiyey cold warkii inuu dib usoo noqday ayaad moodaa ama dhaqaalaha ahaato liberalismkina uu kasii yaraanaya caalamka globalizationkii masaftii lagu wada fadhiyey ama la wada hufayey way soo yaraanaysaa markaa waxaa soo noqonaya interestkii laga lahaa soomaaliya sababtaa awgeed ayaana loogu ordayaa
in lacagtaa adiga lagu soo qaato iyadoo maamul goboleed leeyahay indhihiinoo 5 ah ayaana Muuse Bixi hortiina maamul goboleedka uu kaga dhawaaqayaa oo aniga halkan la ii daayo aan dadkan ku hor jooga ee waa lo'da aniga meeshan igu xareysanay وهاجاك هدي halka arintu taagan tahay oo wixii baa tahay lacag dadkii lagu rursanayo macallimiintii oo mushahar beelay saamaqliseen ciidamadii oo mushahar beelay mujtamacii oo boqolkiiba 80 ku noolaa qadaama dhargaan iyo maalinta uu qofku kala hayo intaa waxa loo sii eegto wadankan intaa in ka badan sabab loo sii eegta ma taalo ina xaashi markii la weydiinayay محمد حاشي علمي ninkaasoo ka mid ah musuqmaasuqa ugu weyn mid ka mid ah iyo corruptionka ugu weyn waayo isagoo qaawan buu Hargeysa soo galay maantana hoteelka ay ku leeyihiin waa dogtay waa ninkii dagaalkii Maryaaloolka tolaayay halkii ina cigaal taagnaa ina cigaal Yahuudda garxajiska ugu mahmaahayay Muuse Bixi uu lahaa anigoo wax dili kariyo duca qaadan maayo isaguna waxaa ninkii Xaaji Cabdi Waraabe beeraale marxatigiisu fogeeyaa ninka Arabe ina jirde korneelka ah aku meel gaarka xisbiga wadanaha iyo gudoomiyaha ninkaas ayaa ka marxatiya qofkii doonayaan iyadoo duban uu arki kara Xaaji Cabdi Waraab uu raadinayay sidoo dili lahaa waa ninkii soo saaray Hargeysa waa 2 kalaas waa ninkii awowgii uu soo hogaaminayay nimanka la yiraahdo ogaadiyay ku markay ciidan gal ku soo duulayeen ee ku faanay ee gabaygiisa hore ugu soo tiriyay waxa noocaasa umada noocaasa waxba aynu la wadaagi karnaa ma jirto minority majority ma xukumaan aqoon daro aqoon ma hogaamiso nin dhala wada suurta cid ka yeelaysa maanta ma jirto waxa daba loo baahay Rabiic al-Arab in la soo baxo injineernimo iyo professor iyo mujaahid iyo wixii oo dhan wuxuu ciridkaan arko ilka kama soo jeedaan dhammaanteed in Rabiic al-Arab wax mucaarad ah waxaan dib ugu noqonayaa ninkii garxajisay igu lahaa ee labadana mucaaradkaas oo dalqaad labadan mucaarad maaha ummadda way hodeen tira badan oo imika ka horeysay bay ummadda hodeen qaar ka horeeyay ba sii hoday oo iyagu soo dagaalamay xukunkoodii laga maruujiyay meesha la yiraahdo Boorama wadadii bay hayaan go'aandada badnayd inay dadku gacantooda maamulka ku qaataan oo ay soo baxaan shacabku sidii Rabiic al-Arabkii oo ay dhalinyaradu iskooda soo abaabulaan way ciidan baaba kor abaabulan iyaga loo sameeyay meel alaale meel u difaacaan jirin jeegan army forceska iyo heego maleeshiya youthka labadaas ayaa isu barkan lacagtoodii la guranaya isu barkan taariikhda beenta aba isu barkan in markaa laga diyaar garoobo in xaashimaanta uu ku dhici waayay markiiba isku laalay ninkii loo jiray Silaayo oo in la qabtay ay tuug buu ahaa hadalkiisa marka la fasiro kan guryaha dadka ku haysta meel laga maray la laayay 40 kana isku reerka wasiirada ka yihiin madaxweyne ku xigeenka iyo madaxweynaha ay soo Muuse Bixi iyo Maxamed Kaahin maaliyadii iyagu hayaan military-gii iyagu hayaan madaxweynigii iyagu hayaan maxkamadii sare hayaan intaas oo uu arko beertii Cismaan Dacas ay haystaan cashuurtii badda ay guranayaan intaa midna kama hadal SNM iyo xabaal wadareed iyo jasiire iyo intaa waxba midna ka jiraan meeshii maalintii Hargeysa madaafiicda lagu garaacayay lahaa Yuhuud baa degan burco maalintii madaafiicda lagu garaacayay lahaa Yuhuud baa degan in Xaaji Ibraahim cigaal lahaa maalintu Muuse Bixi ku lahaa waxaan barkadaha hawdka soo sumeeyo waan DDT ku shubo taaya lagu qorayaa yaa si loo haysta yaa si xaashiyo durbaanka u garaacaysa hawaawirka Allah hadlaya dadka dhalinyarada ah ee garxajiska ah ee Arabka ah ee hartiga ah ee samaroonta ah ee fiqshiniga ah ee nimanka la dulmiyay dadku hayb soocaan ah reer daami dhammaan wixii kale ee jeegaanta ah ee aqoon leh ee aan ku dhex jirin boxka yar ee qabyaalada ah meeshan waa in laga helaa talo lagu badbaadiyo ummadda meeshan degani si uu si wada joogi lahayd waayo wixii kale oo dhan waynu ka soo baxnay waagaag waa maxay ciilqabka intan leeg ee Soomaali loo ciilqabaa maalintii dadku dagaalamayeen fuqa la soo dejibiyay may dagaalamin la maalinta ninka istiilaysan baa laga argoostaa haddii mar gacanta la kala qaado dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhaqan adduun midna kuma jirto inuu ninku cawdo dhaqanka waxa ku badaya cabashadu
iyo dib u go'aashada dhaqankaasi wuxuu ku badiyay dumarka ragga kuma badnaa rag badan gacanta isa saaray waynu kala dhaqaaqnay waliba iyagu dhulka dhignay xoogii dalka Soomaaliyeed in kastaan iyagu ka tirsanay maantana haddii la isku soo noqdo xabaaliye ninkii loo kala tag weeye ninkii lahaa lagu aamini maayo adaa laga doonayaa si aad isu difaaci lahayd garxajis laguma aaminayo wadanka ee tufarmaajo la soo heshiiyey inuu yimaado keeni kar waayay cid wakiil ka yahay iyo cid mas'uul ka yahay midina ma jirtee geeri iyo gaariye iyo hadraawi iyo sahray heede inaga saari mayso waxa loo baahan dad feeraha u soo dhigta xabada iyo casar baahid iyo maghrib baahid wala isla soo dhaafay waa ishaa imika ka waa in loo diyaar garoobaa sidii wax la isaga celin lahaa haddii dhabi dikoodaga wuxuu haddii dhabi dagaalkeedu ka dhab yahay adigoo dhididsan baa loo ridaa dhamac rasaaseede siyaasaddu iyo qoriga cilmiga sayniska ma kala hadhaan political science-ka siyaasaddu iyadoo qoriga hogaamisa dalkeedan qoriga sidaan siyaasad ka horeysa ma jirto ma koonfur ba ku soo dhici lahayd maanta iyadoo reerka majority-ga wadanka ka ah ee dagaalkiisa la lahaa dhiigiisa dhulkiisa leh in 30 kilometer ka degan kuma baayactay karayo way dadka uu la hadlaya de maaha Faransiis iyo Talyaani iyo Orobo wada Soomaaliyeed waa iyaga laftoodu way garanayaan raad raacsin waa ila meeraalaysadii ninkii Arab soo saaray raad raacsin meel allaale iyo meel aynu ka socono iyo meel aynu u socono mawduuc waliba wuxuu ku soo dhamaanayaa fashil been istaraatiijiyad la'aan iyo haybad la'aan waayo wixii baan waxba isku diyaarsan ilaa kulmiyii hore ilaa kan maanta joogo caafimaadkii laftiisii ayaa noqday bini aadamka in lagu khamaaro wixii ugu muhiimsanaa ee qofka bini aadamka waa noloshiisa tiibaa waxay bilowday in lagu khamaaro oo lagu baayac mushtaraa guninkii xanaan show Cabdullaahi Muuse yiri hay soo xeer sanbaad heliyay ummadda ruux xusul duubnayn aynu intaas oo sanadood dagaalka ugu jiray aynu jeelasha kala baxaynay aynu meel walba isu qisaasnay ayaa waxa abaalkeennii noqday in la nagu yiraahdo laguma halayn karo laguma aamini karo wadanka imika waxa lagu leeyahay ummaddu hay israacdo ilmaha yar baa marka uu ooyo la canaanto hadhowna xabadna aan la siiyaa wala xabadna aan afka gasho oo ilaa wixii dhacay waxaanu dileenahay saddex jeer dib u fakara ummadda Soomaaliyeed way isku soo noqonaysaa qof waliba wuxuu ummadda Soomaaliyeed kaalintii uu kaga jiray ayuu ka gelayaa ummadda Soomaaliyeed soo socota ana maaha ummad hawaawir iyo been iyo xaaraanka taajira waana la xisaabtamaya ninka la yiraahdo coldoonna waxaanu ku leenahay godobtiisu family ahaan bay ku saarantay muusow adiga iyo reerkaaga ayaa loo haystaa waynu isnaqaanaa kuwa mucaaradka sheeganaya kuwa salaadiinta sheeganaya kuwa uqaasha sheeganaya dhammaantiin taariikhdu horaan ugu xusay idin saamixi mees ummaduna way idiga soo tag anigu la hadli maayo kuwa salaadiin ku sheegay imika soo baxay ee gurigooda la ciyaara kuwa la hadlaya kuwa ma salaadiinta la hadlaya waa salaadiinta dareenka reerahooda ku shaqeynaysa iyo uqaasha dareenka reerahooda ku shaqeynaysa dhammaantiin waa mahadsantiin